الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. لقد كان لكم فيهم أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر ومن يتول فإن الله هو الغني الحميد. عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة والله قدير والله غفور رحيم. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون. بسم الله الرحمن الرحيم. عشر كان وحوكب بالآبان يا آيات اللحاد أو سورة الممتحنة كمدة. إلهي سبحانه وتعالى وهو نوغصة ورمي uswada waxa ay noogu sugan tahay oo aanu ku dayanayno ayaa Ilaahay nooga waramay. gaalada markaasi waxa weeye khadeecadeeda iyo dhagarteeda ayaa Ilaahay nooga soo waramay oo hadda waxa weeye ducadii Nabiyullaahi Ibraahim iyo intii rumaysay oo annagana Ilaahay subhanahu wa ta'ala ku dayda uuna dhahay waxay ahayd inay yiraahdeen rabbigayna ayagoo duceysanaya gaalada fidnaha noogaga yeelin. لا تجعلنا فتنة إله هنوغا دغين للذين كوا كفروا كفريه. فتنة سنا أي هذا إنay naga adkaadaan markay naga adkaadaan fitna weeye markaasi caalamka maanta fitna taala oo markaasi ay u maleeyaan inay xaq ku taagan yihiin oo fidnoobaan ayaguna ilaahu noo dhaafay yiraahdeen rabbana innaka antal azizul hakim. adana Allah halkan wuxuu leeyahay لقد حقيقة كان لكم محايدين هذا الإلهي هداتين أمة محمد الإلهي فيه مولى إلهي نبي إبراهيم يقوم كيسي أسوة ضيشو حسنة وناسا لمن روح عينا وهات أسوة حسنة كان هذا يرجو الله إنه رجينا يولي يوم يونك الآخرة ودنبو ومن يتولى روحي كحرير يشول إلهي قال ذا فإن الله هو الغني اللي هدى يقتون ويخلق إيسا كمارما الحميد المحمود اللي لما هديوي ولمرك هذا إلهي وحونا وغسيه ورميا أسود حسنة هذي ومركز نبي الله إبراهيم يقوم كيسنا وغسوغا آيات دانا آيات هور أي تأكيد أطايوي مرك هذا waxa loo keenana waxa weeye mubaalago in lagu madax tiiraayo lagu xeel dheerahayo boorin la isku booriyo itibaac la raaco Nabiyullaahi Ibraahim iyo ummadiisi oo waxa weeye wax kasta aan isaga mid nahay. marka hadana Ilaahay dadka uswada xasana ugu sugan tahay dadka ay yihiin oo ummadan ummatul Muhammad oo hore ayad hore loogu sheegin ayaa Ilaahay halkaan noogu sheegaya. Allah wuxuu dhahay subhanahu wa ta'ala laqad xaqeeqah لانتان وضعت القسم وي إلهي داروك أتكينيا لا والله يا قد حقيقه كان لكم محايدين هذا الإلهي يا أمة محمد وي فيهم أيود إلهي نبي الله إبراهيم يقول كيسي أسوة أما إسوة نسكمد وي مع نسكب الدين مايان لو ذكروا ضيشو حسنة أو ناسا لكن يي أسوة حسنة أو صغنتها مرك لمن دولك بدل وي وبدلوا اجتمال وي لمن روح يا أسوة حسنة أو سغنتهي كان هذا الإلهي يرجو الله رجدة سيديس إن لو دايو يا إن خوف لغا عبر لبدا قبنانته لمن أيا أسوة حسنة أو سغنته الإلهي يرجو الله كعبسناي قفك إلهي كبقايا أيا أسوة حسنة أو سغنته هي واليوم يونك الآخرة والدنبو يوم الآخر كو حوية وقيامة وي إن مالنتاس قيامه waxa weeye markaasi la sawaabiyo qofka waxa weeye markaasi rajayhaya ama sa Allah ka baqaaya maalinta qiyaamana sidaas oo kaleentood inuu markaasi faleexooba ka baqaaya ama sawabga Ilaahay rajaynaya. arintaas markii Allah subhanahu wa ta'ala uu ka waramay haddana dadka gaalada xiriirsha Allah wuxuu leeyahay
ومن يتولى روحي حرير شود إلهي أو كولي ياشه ولي ياشه وحاوي مركز بأن يوالي الكفار قال هذا إنه حرير شوي حرير كذا أنه سومريني حرير كمركز وحبا أن دبي نوانو لوس وانو صوص عطا ومن يتولى روحي حرير شود إلهي كفارت فإن الله إلهي هو الغني اللي هدى يقتون وخلق عيسى وحال لغا ودا qofkaas gaalada xiriiraya wax dan oo Ilaahay ka leeyahay ma jirto weey wax dan hadoo gaala xiriisha asay u daranta wama yatawalla ayuuna Ilaahay subhanahu wa ta'ala qofki ka jeesa iqtidaha nabiyullaahi Ibrahim la isfaray fa inna Allaha wal ghani al hamid laakin jawaab shardiga meesha maxduuf waayo oo waxa markaa fawabalu ala nafsiha la soo qadari kara manta shardiyada halaagiisu waxa weey ama hoogiisu naftiisa ku dhacaya maxaa yeelay fa inna allaha daan markaas waa la tacliil cilla waaye cilla ay jawaabdi ay u tahay fa inna allaha ilaahay subhanahu wa ta'ala huwa al-ghani alladhi deeqtoon way khalqiisa ka maarmo oo qofkaas xumaaday wax dana ilaahay ka male hatta qofkii wanaagsanaaday wanaag ilaahay anfici maayo ilaahay wanaagna ma anfaco makhluuqa ka yimiday dhibaato macaasi iyo lur ka yimid makhluuqana ilaahay haba ka dhibi maayo الحميد المحمود عليه لما هديه وي أما الحميد إلهي كي صوابي أهل دا عديس قال دي مركي الله يسكر يا بي إلهي وحونا سبحانه وتعالى حرير كود الله يسكر يا بي عسى الله وحو مديهي أن يجعل إنو يالا بينكم إنك دحدين مؤمنين تا يو بين الذين كو دحوذ عاديتم الله تنتين ومنهم كفار تكمده الإلهي مودة محبة إلهي وياله dadkii aad colka aheedeen oo gaalada ahay ilaahay wuxuu mudan yahay inuu dhexdiina jacayl u yeelo jacaylkaas wuxuu noqonayaa bi an yahdihum lil iimaan wa in ilaahay iimaanka ku hanuusho oo gaala jacaylkeedu wuxuu imaan karaa markii qofkii gaalnimada ka soo noqdo oo mu'min oo noqdo markaas weeye laakiin hadduu gaalnimadiisa ku taagan yahay wax maxabba leeyahay ma jirto معايا وبدأ بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا إلهنا صلى سبحانه وتعالى أبد الأبد يتاقناه إيسا مرضي وحاوية كفر يكون تاقيه الله مركا يقول سبحانه وتعالى عسى الله وحو مديهي أن يجعل إنه ياله بينكم إذنك دحدين مؤمنين تا هذا آيادا وحاوية إنت أنا معنى ذوكرين وحي تصلي أطاي oo markaas lagu maaweena ama lagu sabar gelinaya dadka muuminiinta markay waayeen markaas kufaarti xiriirkooda oo waxa weeye suurada awalkeeda laga reebay ayaa muuminiinta waxa ku daraateen muslimiinta waqti nabiga kaleey salaam gaalada say uga hijroohayeen si xoog lay gaalada uga hijroodeen gaala waa laga hijroo jira laakiin hadda iyada loo hijroodo haya ilaahay marka muslimiinta waxa uu yabahay in markaas waxa weeye aqaaribtooda qaraabadooda kufaarta ah inay xiriiri doonaan muwaalaad oo jaa'isa oo madluuba way ilaahay inuu kulmi doono kala tagooda bacda tafarruq inuu kulmi doono maxaa yeelay dad badan oo markaas gaala ahay ayaa soo rumeeyay markaas waxay la midoobeen qaraabadoodii oo markaas muslimiinta ay la midoobeen maxaa yeelay dadka muuminiinta ah waxay jeclaayeen dadka walaalahooda oo nasabka iyo wax ka say walaal ka yihiin ayaguna gaala inay gaalnimada ka soo noqdaan taas marka ilaahay qalbiga ugu dhisaayo Allah wuxuu dhahay asallahu Allah wuxuu mudan yahay asada iyo markaas lacalada quraanka xaqiiqa laga laqbeeya sidii tii arabiyada ma lacala li taraji wa tawaqqu'i ma asallahu Allah wuxuu mudan yahay an yaj'ala inuu yeelo ilaahay baynakum idinka dhexdiina muuminiinow iyo bayna alladina kuwa dhaxooda caadaytum aad collaytanteen oo minhum kufaarta kamida daacada ilaahay aad ku collaytanteen mawaddatan mahabba u yeelo marka bi ay yahdihum lil iimaan way fayasiru lakum awliya illa hada wilaayadooda yaa la idin ka reebay markaas awliya idin noqdaan illa dadka muuminiinta ayaga dhaxooda awliya isu yihiin والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض وتنقصوا مرجنا سورة براء تذكر مؤمنين ترقي الضمر أيها أيها ولي إسوء وحرير إسوء وي منافقين ترسل سوك الإسراء آيات وعوي آيات كذا بيس
ayaguna xiriir isu yihiin cid kasta oo waxa weeye isku mabda ayaga xiriir ah weeye marka Allah wuxuu leeyahay subhanahu wa ta'ala wallahu allana qadirun alayhi kala weeye ilaahay wuxuu xaqiijiyay in markaasi dadkan muuminiinta oo dadkoodii gaalada ay yihiin in ilaahay uu markaasi uu keeni doono inay markaasi waxa weeye ay isjeclaadaan oo islaamka lagu soo hanuunsho taas ilaahay awood inuu leeyahay Allah wuxuu leeyahay wallahu alla qadiru alayhi kala weeye arintaasna waa dhacdayo markii Maka la furtay waxa weeye dadkii badankoodu waa soo islaameen maxaa yeelay gaalada markaasi waxa qaacidadoodu aheeday oo meesha fadhigoodu wuxuu ahay xoogooda iyo meesha ay ka duuli jireen iyo meesha ay markaas halka ku haysteen waa ahay Maka aheeday Maka markii laga faramaroojiyay sanadkii 8aad oo hijriyada waxa weeye markaasi meel ay saldhigaanay waayeen marka waxa dhacday inay iska soo rumeeyeen oo iska yimaadeen marka arintii saasa Ilaahay subhanahu wa ta'ala dad fara badan ayaa waxay ku xaqiiqoobeen inay soo laabteen oo muslimiinta ay la midoobeen oo ay war islaameen arintaas Ilaahay awood inuu leeyahay ka waramaya wallahu alla qadiru alayhi kara weeyo Ilaahay wallahu allana ghafuurun alayhi dhaafo weeyo wixii markaasi oo islaamka ka horeeyay sameeyeen gaalnimada ay ku sameeyeen Ilaahay waa u dhaafaya al-islaamu yahdumu ma qablahu weeyo islaamku wixii ka horeeyay waa baabiinaya rahiimun alayhi naxariiso weeyo Ilaahay subhanahu wa ta'ala uu naxariisanaya haday kufriga ka soo laabtaan Ilaahay subhanahu wa ta'ala waa uu naxariisanaya Ilaahay dimbi wuxuu horna Ilaahay waa u dhaafaya Ilaahay hadana wuxuu dhahay subhanahu wa ta'ala la yanhaakumullahu alla idinka reebi maayo ani alladheena an muwalati alladheena ku xiriirintooda kuwaasoo lam yuqaatiluukum idin la dagaalamin Ilaahay oo kufaarta kamida fi diinka idin kula dagaalamin walam yukhrijuukum ana idin ka bixin min diyaarikum daarihiina an tabarruhum inaad u baarinimo fashaan alla idinka reebi maayo oo watuqsidu ayuu Ilaahay subhanahu wa ta'ala aadu garsoortaan Ilaahay ma xaqooda inna allaha allana yuhibbu waajicil yahay almuqsidiina kuwa garta suuraya ayadan hadda intaanan macnaheedu u gelin waxay ku soo degtaa leeyri ayadatan inay khasisto xukunkii ku soo degay suurada bilowgeedii suurada bilowgeeda xukunka ay caam u ahay ayadana khasisaysa marka maayela ayadii hore suurada bilowgeeda caamatan ay fi saa'ir al-kufaar mudaan gaalado dhan indiga walaw kaanu musaalihiina haba hadada la soxtamo way halkan Ilaahay wuxuu ku cadeynaya qofkii gaalada kamid ah oo markaasi baynahum wa baynal muslimiina sulhun ayaga iyo dadka muslimiinta heshiis oo u dhaxeeyo iyo muhaadano oo u dhaxeeyo oo balan la leeyahay in markaasi in la xiriirsho ay banaanta nahyigaana ma shamlinaayo gaalada dhamaanteeda waxa kamid ah dadkaas nimanka la leeyahay bani khusaa'a iyo bani al-haras ayaa kamid ahay hadii marka hadda arintaas la qabto ayadan waa muhkama li oo haddantan hatta muslimiinta waxa u banaan gaalada markaas inay xiriishaan oo laakiin dimada ku jirto oo waxa weeye markaas gaalada muslimiinta xukunkooda ku hoos jirto oo laga qaado jisyada laga qaado sulh amba heshiis la leeyahay oo heshiis la galay ayaguna markaas wax dhibaato aan wadin waxa kale la yiri markaas lam yuqaatiluukum waxa laga wadaa kuwan dagaalka idin ku bilaabina laga wadaa oo dagaal ay idin ku bilaabin idin ku dagaal ku biina yaanba idinka wixdiina wax sulh oo san aalin arinta marka dambo oo qeylkaana islaamka markuu bilowga ahay saasay eedaaliin suuratul baqara waan ku soo marna weey كبعد لكن وحال لغو نسخي آية القتال لغو نسخي عموما وإلهي فاقتلوا المشركين حيث وجدتموه لإلهي وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة لكن هذا ضد كان لليه حرير كود اللي ذكره مايو وضدك مركز وحوية وأهل ذمدها أيها لغوضا لكن قال أو مركز وحوية وح أهدق مسلمين تا أن كجر وحوية كاس مركز الحرير مايو لا ينهاكم الله ألا إذن كرهي ما لله عن الذين كوا حرير كودا لم يقاتلوكم إذن لدقى لمين
في الدين دينتنا إذا كهيسنين لأجل دينكم دين تدراد إذا لا تقالمين هذا ولم يخرجوكم إذا كبحين نور إلهي من دياركم دارهين إذا كبحين ولهين أنا إذا كبحين سيد مركزي وهو كفار مكو أيوة بحيان أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام مكة وبحيان وعلاد مركزي كبل أبي أما علاد أساس وذوي أنت بروه مول إلهي أنا ضبار المفشان إلهي ذكره بماي وهو تقصدوا أذو قرصورتان إلي ما يحقوض وعد على أصميسان لكن هذا وحوي آيات تنو وحوي إنتان جهاد كوضا الله يسفرين كهري هذا ليري قال هذا الجهاد كذا إنتان الله يسفرين كهري هذا ليري سيداس أيانا مركا سالو بدنيا هدي ليري هذا سيدة هالودا ينوى سيادة سوشي ينو قال هذا مركا سيهلو ذي مدى وحوي أحكام مسلمين تكو هوس جرته ayaa loola jeedaa saas hadii la yiraahdo sideeda ay sax ku tahay hadii kale intood aayadatan waxa weeye aayadihii ka dambeeyo oo waxa weeye jihadka la soray ayaa markaas nasakh ayaa leeyahay in allah u ilaahay yuhibbu waajicil yahay almuqsidiina kuwa garta suura u ilaahay subhanahu wa ta'ala oo caadiliinta weeye oo hadda waxa weeye cadaaladu qoladaas kaliya khaas ku maahne adligu sidiisaba cadaaladu waajibay tahay qofkas in cadaalad loo sameeyo marka cid kasta in cadaalad la marsiyo ayaa markaas waajib noqonaysa weey oo qofku uu cadaalad u helo hatta hadduu qof qaatil oo wax dilo uu yahay waa in cadaalad la marsiyo meeshii shariicada markaas oo xukunka uu ku lahay ayaa laga siinayaa wixii ilaahay u jideeyay ayaana la marinayaa إلهي وحوده إنما إنك لا تما ينهاكم الله ألا وحود كرهبيا عن الذين عن موالاه الذين كوا حريرين توضوا لله قاتلوكم إذن كلا دغالمي في الدين دينك إذن كلا دغالمي كوا الدين إذن كلا دغالمي كوا حريرين ميسان إنما إنك لا تما ينهاكم الله ألا وحود كرهبيا عن الذين كوا حرير توضوا لله قاتلوكم إذن لا دغالمي في الدين دينك إذن كلا دغالمي عن إنما ينهاكم الله إلا وحود كرهبيا عن الذين قولوا إلهي قاتلوكم إذن لا درري في الدين دينك الدراديس إذن لا دغالمي هو الدين إذن لا دغالمي وأخرجوكم إذن كبحيين أو إلهي من دياركم دارهين إذن كساري قريهين إذن كساري والدغال إذن كساري أو إذن كواري قريهين وظاهروا أيونا إلهي أو كالمي يهدنا على إخراجكم بحنتين أو كالمي عدوه وظاهروا كالميول إلهي عاونوا على إخراجكم أما وظاهروا إسوك الميستي على إخراجكم بإنتين إسوك الميستي وظاهروا أيول إلهي سبحانه وتعالى إسوك الميستي على إخراجكم بإنتين أن تولوهم إذن بدلوا اشتمال وي إنا تكحرير يالتان أيا الله إذن كرهيبيا وذولي كدقتين هذا غرض السيدة سواء الله يسكرها بموالات كودة الله قحو كور هما يقفك حريشة ومن يتولهم روحي كولي يشو لك حرير يش فأولئك منت وجمع نغتوي ومن يتولهم روحي كحرير يشو إلهي فأولئك قوى صور إلهي كحرير يشو هم الظالمون قوى ظالمين أوي قفك قال هذا النوع عاسة حرير كياشة ظالم وي ومن يتولهم روحي كحرير يشو فأولئك قوى صور إلهي هم الظالمون قوى ظالمين وإلهي سبحانه وتعالى دا عديسة كبحي وي وأي نقونا يا مركز الظالمين أي نقونا يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن الله أعلم بإيمانهن فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن وآتوهم ما أنفقوا ولا جناح عليكم أن تنكحوهن إذا آتيتموهن أجورهن ولا تمسكوا بعصم الكوافر واسألوا ما أنفقتم وليسألوا ما أنفقوا ذلكم حكم الله يحكم بينكم والله عليم حكيم وإن فاتكم شيء من أزواجكم من الكفار فعاقبتم فآتوا الذين ذهبت أزواجهم مثل ما أنفقوا واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون
إلهي يقول سبحانه وتعالى يا أيها الذين دولك آمنوا رميانو إذا وقت جاءكم إيدي ماذان المؤمنات وينك مؤمناتك مهاجرات حاليين كوسوه هجرودي فامتحنوهن امتحانا لإلهي الله أيا أعلم بإيمانهن إيمان كود إلهي يا أوي فإن علمتموهن هديات كوغاتان لإلهي مؤمنات إليهين فلا ترجعوهن هوينك سأوعرنا إلى الكفار قال هو عرنا معايا اللهن هوينك سماها حل حلالك وهو لهم كفارتا ولهم كفارتنا معها يحلون لهن هوينك سكوا حلالوه وآتوهم سيو لإلهي قال naagaha waxa weeye nimanka ay ka soo tageen oo gaalada ma anfaqo waxay ku nafaqeen oo maharka loo celiso wala junaaha dambi calaykum korkiina ma aanu ilaahi an tankixuuna haweenkaas inaad guursatiin oo ilaahi shuruuda iyadoo la fiirinayo idaa waqti aataytumuuna aasiisaan oo ilaahi wujuurahunna maharyaalkooda wala tumsiku haysan ama wala tumsiku bi'isa milka waafiri naagaha gaalada xarigooda haysan oo ilaahi zawjaadkiina haday lacala gaalooban xarigooda haysana maxay islaamka ayaa markaas kala goynaya oo kufrigooda ayuu ku go'ayaa wasalu su'aasha u dhahay idinka naagahu ay idinka gaaloobeen oo idinka tageen oo ay gaalada u galeen ma anfaqtu maxaad ku nafaqayseen haweenkaas oo maharkoodiya ka qaata sida ayagu ay idinka qaadanay u siinaysiin وليسألوا أيقون هيدي سؤاشانو ما أنفقوا وحي ناقوهذا كنا فقايان كسوة تقي ذلكم كي ناس حكم الله إليه حكم كي سوية يحكم الله وحكمنا يا بينكم لحدينا والله ألنا عليم عليكم علم لوي حكيم عليه فلسموه شيء كست وإن فاتكم هدي إذن كلا تغانوا لله وإن فاتكم عن إله هدي إذن كتغان شيء من أزواجكم هوينكينا كمذا هدي إذن كتغان إلى الكفار قال إذن كتغان قال آذان يقول ردابي أو فعاقبتم أسوء عقابتان لله أو قال إذن كدوشان وحوي السوقني ميستان فأتوا سيوا لله الذين قوة ذهبت أي تكتي أزواجهم هوينكود أي تغان مثل ما كيو كلا غنيمة كسية أنفقوا ناقاس يكون فقير ومهر كيو كلا كسية مهر كي أي قال ناقاس أي مارتي أي سيان واتقوا الله الله كعبصدوا لله الذي الله سو أنتم إساق به أنتم إذن كيو إلهي به إساق منكور من آتين هذا وحوي آياتهان وحوي لبضان آياتات أحكام أياكو جرته سورة دانواتي لغمة سورة الممتحنة أما ممتحنة امتحان كي مركاسيها وين كان لجربها هي أرمها سواها كل عين هي وحيابا بدنو أحكام وكو تعلق أيو وحنا يهين مارتيا منسوخ يهين ولا نسخي أيها مارتيا كجيرت وانا لبضان آيادود سيدا بدن وحاوي حكم كودو منسوخ وي بركا وحي ربتا بيان إيا فاهم بدن أي أباهيه لبضان آيادود marka insha Allah ta'ala waxaanu ku soo qaadan doonaa 10 kiisa dambo hadii ilaahay ilaada ayaanu bayaana u qaadan doona marka hadda hayse yeeshay 10 keen inta suuq eegyahay Allah subhanahu wa ta'ala